Wasiirka Amniga maamul goboleedka Juballand Abdirishiid Janan ayaa ku eedeeyay dowladda Soomaaliya in aanay waxba kala socon xaaladda ammaan ee uu dalka ku sugan yahay. Abdirishiid Janan ayaa sheegay in dowladdu aanay ka warqabin ciidamada Soomaaliyeed ee maalin kasta dagaalka ku jira, isagoo soo hadal qaaday ciidamo la sheegay in lagu dilay gobollada Gado iyo Jubbada Hoose. Waxa uu sheegay in ay dowladdu ku mashquulsan tahay kaliya baraha bulshada iyo dadka qoraalada ku soo qora Facebook ee buunbuuniya. Sidoo kale waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliyeed aanay xilligan la socon waxa ka socda dalka, sida kan wax dila iyo kan la dilay. Khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ayaa sii xoogaystay tan iyo wixii ka dambeeyay markii maamul goboleedyada shir ku yeesheen Kismaayo, waxaana soo baxaya hadallo kulul oo labada dhinac hawada isu marinayaan, taasoo loo arko inuu sii fogeynayo khilaafka.